sukow waxaa jira mashaariic badan oo dawladda Qatar hore u balan qaaday kuwaas oo wali qabya ah waxaa kamid ah dhismaha wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo dawladda Qatar hore u balan qaaday inay dib u dhis ku sameyn doonto gawaaridan oo ah kuwa qufulan oo la cayn ah kuwa isticmaalaan ciidamada AMISOM ee Soomaaliya u jooga howlgalka military waxay dawladda Soomaaliya helaysaa xilli ciidamada qalabka sida ay baahi xooggan u qabeen sida uu sheegay Xasan Cali Maxamed Amar Dambe wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya inaan u mahad celiyo anigoo ka hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo kan ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu mahad celinayaa amiirka dawladda aan walaalahan u nahay ee Qatar Sheekh Tamiim bin Hamad Al Thani iyo xukuumaddiisa taas aan macnaheeda tahay inay maanta ay nagu taageereen qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ay nahaysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan runtii waxay tahay taariikh la miilaabana qalubteen aysan ka tirmeenin insha Allah ta'ala waxaan filaynaa ama rajaynaynaa aan ka rajaynaynaa dalka walaalahan ee Qatar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari lahayn hadafkeena oo ah in sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay lahaan jirtay ay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed bilowga sanadda 2018 xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa gaabis galay markii dawladda Soomaaliya cadeysay mowqifkeedii kaga aadan khilaafka u dhaxeeya dawladaha khaliijka balse markan Qatar oo kamid ah dawladaha ugu dhaqaalaha badan dunida waxay door muuqata ka qaadanaysaa garab istaaga Soomaaliya Aweys Maxamuud Jilcoon Cable TV